السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا صاحب العاوية بليدي قدام بي iyo qodob aad u xiiso badan oo xasaasi ah waliba waa arrin cusub oo hor leh oo marka hadda soo kordhay. waxaan ku soo qaadanaa uga hadlaynaa programkeena caawa waa xaaladii dagaal ee marka ka taagneed galbeedka ama dagaalkii marka u dhaxeeyay waa beeshii Ciiseweyne ee deegaankooda marka duulaanka lagu ahaa ee maleeshiyadka ka soo jeeda beeshii Samaroon marka ay duulaanku ahaayeen. Haddaba caawa arrintan soo kordhay iyo update-kii ugu dambeeyay ee aan rabay inuu soo qaato ayaa gabi ahaanba waxa uu yahay waa mid ka duwan hawshii markaa socotay ee u dhaxaysay waa maleeshiyad ka soo jeeda beeshii Samaroon ee iyagu markaa duulaanka ahaa iyo nimankii beeshii Ciiseweyne ee ayagu markaa deegaamadooda difaacanayay. arrintan la yaabka badan iyo xaaladan hadda marka soo kordhay ayaa waxay tahay waa beeshii Samaroon ee markaa duulaanka ahayd ee maleeshiyadkoodu ay ogay wixii ay markaa sameynayeen. caawa ayaga ayaa deegaamadoodii markaa lagu haystaa oo beeshii habar awal ee Sacad Muuse ayaa waxay taagan tahay deegaamadayadii ayaa ay Samaroon markaa degan tahayba. awal waxaynu ogeyn waa maleeshiyad ka soo jeeda beeshii Samaroon ee duulaanka ahaa oo deegaanka markaa dhulkii beeshii Ciiseweyne iyagu rabay inay ku duulaan. waa maleeshiyadkii ka soo jeeda dabcan beeshii Samaroon ee duulaanka ku ahaa dhulka beeshii Ciiseweyne. maanta haddaba iyagii bay haysataa oo beeshii habar awal ee Sacad Muuse odayaashooda ayay rabnaa markaa inaynu kusoo qaadano ama odayaashii dhaqanka beesha Sacad Muuse qaar ka mid ah oo ayagu markaa taagan Samaroon dhulka ay hadda degan yihiin ama ay sheeganayaan waa dhul beeshii markaa Sacad Muuse iska leedahay ayaa ay xaaladdu taagan tahay oo nimankii ayagu markaa maleeshiyadkooda duulaanka ku ahaa Ciiseweyne caawatoodii baa haysata. deegaamadii markaa ay sheeganayeen ee awdal ka tirsanaa ayaaba ay hadda hawshu ka taagan tahay. yacni dulmigu haddii uu bato oo la isqaban waayo oo gardarro markaa inta la isku raaco deegaan ay dad iska leeyihiin weerar lagu qaado de waa qasab aliyad biyad. aakhirkana waxaa imanaysa in adigu deegaankaagii aad markaa xaqa uba lahayd lagu qabsado oo lagugu yimaado. odayaasha haddaba beesha dhaqanka Sacad Muuse kasoo jeeda ayaa rabnaa inaynu galno ma runbaa deegaanka markaa ay sheeganayaan oo dee dabcan awal beesha Samaroon ayay sheeganaysay balse maanta Sacad Muuse ayaa taagan anakaa iskale Samaroonna markaa shaqo kuma laha. waa arrin aad u la yaab badan iyo hawsha hadda markaa kusoo turantay waa beeshii Samaroon ee duulaanka ahayd. bal meeshaan ila dhegeysta وفق آدم وسكوي لتري يبون أو والله يا كاسينا نكيم بيرها تصوح هذا اليوم كبيعة طلبات أتكاد أفرت تاني يصير يسا ما أنت يقدر تاليو أي تاجن تهاي واحد ولا أو تشيل كايس كتام خلا وباش سعد مسواني ما كي هبر أول waxa ay hadda ku dhagan yihiin waa beeshii Samaroon ee maleeshiyadkooda markaa looga taag waayay deegaanka beeshii Ciiseweyne iyo Gubaan State ilaa iyo Seylac ayuu taagnaa annaka iskale. dabcan dhowrkii bari hadda markaa ugu dambeeyay xaalad badan baa isbedeshay oo nimankii Ciiseweyne markii xafadii ay tiimay ay markaa qabteen dabcan beeshii reer Somaliland ee Isaaq waxay hil markaa ugu soo jeesatay waa beeshii Sacad Muuse waa beeshii Ciiseweyne oo waxa ay taagan yihiin de awalba qalad baan ku aadnay raaligelin baan ka bixinaynay ay markaa hawshu maraysay. maanta markaa odayaashan hadda hadlaya aynu u jeednay waa odayaal ka soo jeeda beeshii Isaaq waa odayaal habar awal ah oo Sacad Muuse ah. waxa ay taagan yihiin Samaroon ma waxaysan ogeyn Isaaq iyo Ciise in ay markaa walaalo yihiin. adeero dhibaatada aad geysatay oo damaca ku geysatay wariyan debinta wada cunayna maalin aan ku hadlayo waayaha inuu debinta aan ku cunayno biyaanin aanin ogeyn war marag walaalo isku damqan waaya ayaanu nahay haddii aan labada hees isku damqanayn tii shareeyba ismay raaceen lug hayana waxaanu laga dhisayaa imika naaw marka la bilaabo taaladii Cabdilaahi Isaaq waa in lagu xakam waa mujaahidkii ugu weynaa ku dul dhintay ruuxa waa hagaag waa mujaahidkii ugu weynaa ee ku dul dhintay ayaa ay taagan yihiin oo qaladka hore dhacay inaku og hadda haddii ay markaa hawshu sii joogsan weydo annakoo soconna ayaanu dagaal soo qaadaynaa oo ilaa iyo lug hayo watan xitaa hadda beeshii Samaroon loogu hanjabayo in taalooyin iyo hawlo markaa laga qabanayo. dabcan tallaabadii qaldanayd ee beesha Samaroon ay ku dhaqaaqday marka koowaadba waa mid iyaga markaa dhiiqa lugaha loo geliyay oo xukuumadda ee talada hadda haysa ama beeshii Isaaq dhiiqa mid ay cagaha u geliyeen bay ahayd beesha Samaroon oo duulaan bareera markaa ku qaaday iyagoo deegaankii Ciise sheeganaya dee reerka Ciiseweyne dhulkoodii. maanta dulmigii markaa ay shalay sameynayeen iyo duulaankii ay wadeen iyo xaqdarradii ayagu Ilaahay marka ku keenay
oo nimankii ay garabka markaa u haysteen oo ay taagnaayeen kuwan baa nala dhashay ama waxna taraya ayaa maanta duulaan ku ah oo dagaal raba inuu markaa kuba qaado u taagan waa annakoo isaaqoo markaa beeshii ciise u hiilinayna annakoo isaaqay taagan yihiin oo beeshii ciise u hiilinayna oo iyagaa markaa nala dhashay oo walaalaheena yacni samaroon waxba iskuma nihin ayaa ay markaa noqonaysaa kolley hawl kale ayay wadaan waxaasoo dhanna waa 18 May waa dulmigii samaroon ay shalay markaa ku duulaysay mid lamida ayay nimankan sacad muse laftigooda wadaan balse samaroon waxaa muhiima inay ku quus qaataan gardarrada iyo dulmiga unuusan markaa wanaagsanayn oo hadhow adigana ay markaa kugu imanayso waynu isgaranaynaa waxa weeye intii afweyne dhulkaysa saarsaaray oo waddooyinka isku wada gollo in waddo walba waddo kala jiirsiiyey unbaad waxaan la soo baxday wixii afweyne uu dhacay waa laga baxay dadkii islaamka ahaa ee meesha ku wada noolaa kii dambiilaha dambigii waxa loogu dhaafay nolosha dadka nool maanta idinma muuqato cabdigeedi walow sheekhu ka tashan yahay ciddii lahayd baana u tashanaysay cidda ku soo bu-aysaa ku salugay halkan imaka ragga layga magacaabay inay gacanteed ku jiro bal waxaad siiyeysa fursada khidmadiina way badanta oo laydinka fil layga magacaabay inay gacanteed ku jiro bal waxaad siiyeysa fursada khidmadiina way badanta oo laydinka filiilahay maanta sacad muuse ka talinaya ciise intii halka ala dhigay ragabaalka ala dhigay buu yahay dee haddii nabadiidi deeb weyday waa anagana maanta noo soo tallaabtateen waa hagaag waa nabadii markaa haddii ay idin deeq weyday oo ciise intaad kasoo tagteen hadda aad sacad muuse iyo nimankii habar awal usoo tallaabsateen dee dagaalun bay markaa noqonaysaa awalba dulmi baad ciise ku aadeen haddana dulmigii iyo hawshii ayuunbaad wadaan bal iskensiya ay taageen dabcan arrinta maa beeshii samaroon baa bilowday suldaankii ayaantii dhuweyd xitaa soo laabanayay ee dhowrka sano ka maqnaa ee suldaanka beeshii samaroon ee suldaan wabar laftigiisu in la xidhay oo xabsiga la geeyey ayaa hawada ku jirta ama wararkana soo gaadhay marka ay sheegeen oo dowladdii ay xidhay ma arrintan bay markaa ku lug leedahay ma hawsha socotaa isku soo wada duub maalinta aad dulmi samaysid oo aad dad duulaan ku qaadid dhulkoodana gardarraad markaa aad weerar ugu qaadid ood maleeshiyaadkaagii markaa ka shaqo gelisid oo wixii baadiyaha deganaa oo la dhaqatadii guryaha intaad ka gurtid wax walba marka aad samaynaysid adiguna ogsoonow in markaa taa mid ka daran kugu imanayso maleeshiyaadka beesha samaroon ee abu khaliifa markaa daacadda waa dulmigii iyo dhibaatadii iyo duulaankii iyo dilkii ay wadeen oo beesha ciise markaa looga taagi waayey waliba beeshii ciise intay dagaal kusoo qaaday ay soo eryadeen oo ilaa iyo boorame ord markaa la isku keenay wax fiican bay sameeyeen dabcan waana laga adkaada beeshii samaroon kumaysan dayane cidna kamaysan dilna farahay ka qaadeen hawshaasoo dhanna maxay ka bilaabantay samaroona markaa lasoo adeegsaday oo xeer ciise oo xaflad markaa loogu samaynay magaalada saylac iyo dhulkii beeshii ciise ee gobolka salal ayay boorama dagaal iyo qaylo iyo bug ka kiciyeen maanta marka kuwii ay markaa isku halaynayeen ee soo riixayay ee taagnaa ciise yuusan xeer ciise ku qabsan magaaladii saylac ayaa kusoo kala jeestay oo taagan ciisa walaalkeena oo markaa nala dhashay yacni waa dulmigii ay sameeyeen ayuunbaa beeshii samaroon ka go-aya كل حالة حالة سهلة معها وحالة فرح كبحضي باشي عيسى ده هالكاسي تاجنت ويا بنتهاي وصعد موسى يعني ما كيسمحون أي هذا كالاحتراطي وصعد موسى أي تاجن قرمنا أنك السوق لينا عيسى ما مستوى عليه باتين سمحون وكبرتي أنا كفلان إذا بقول لينا دول مجي كردخدي يدولاك يكون سعودين وأنت عيسى كسوق بين ما أنت عنك أي نسوء آلين سوق أي دايو أو نطاوضة يعني وحالة فرح كبحنا بندش أو شيء ضبط فوق معها الوحي أبدي كوسا كردي إن شاء الله فيلم كوحي جاي نوقت هذا نوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.